بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله وليال ضمانتين إلهي سبحانه وتعالى أيان ومهد علينا جلسة قيمها بضن إنه كل مياه في بيت من بيوت الرحمن. جلسة لقوة إلينا لقو حسوسنا إلهينا لقو مهد علينا جل جلاله تلاشدي نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. فيا لها من نعمة غالية زكية طيبة عطرة نيرة وحلاه اللوغم هذه عليا وحدتك مسلمين توايو كل مان وحي وخير كبضناه ما دام جلسة كستا يكون والباهي وحكو شرفه با موضوع لوغا هدليا جلسة يكون كان وحا شرف مقعي مقام أغفلا من بدايتها إلى نهايتها جلسة إنه خصيصه لوغا هدليا نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. وكفى بذلك مزية وفضيلة انت أسا كلا كان يجلسة أغفلا مقعي قيمه هكذا هذا نقوم هذه علم شيخنا الفاضل شيخ عبد القادر وإمامك مدرس كمسجدك ورنتي سونا جلسة سوق قارسيي مستواها ناتك وقروح البضن انتنا المسلمين سبب قواها إن يدقيستان سيردي يجهدك يشمائلك نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. عكرون ما هذه علم جماعة شيخ قربه ساعة ويومنا كساعدي كالميي ومسكح يمال يمرغبا كبحيي إن اجتماعا انت لاك هل كان لغو السمايو إلهي اللوغم هذه عليو نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه درشديسي هي نعمتي قالقة هاي إلهي اللوغم النيستي. انت كبعد وريال ذلك مسلمين على اختلاف لغاتهم وتباين بلدانهم واختلاف ألوانهم يحتفلون بالمولد الحبيب. مسلمين تميل والبقوا عالم كيكجوغان أيقوا اللغة أي كهد ليان أي اختلاف سنتهي wadamada ay kala joogaan ay kala fog yihiin jinsigooda iyo midabkooduba uu kala duwan yahay meel walba ay joogaan bishan oo kale waxay u xafladeynayaan oo ihtifaal u sameynayaan dhalashadii nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam tasliimaati alayhi. dadka inta muslimiin ah oo isgaranayn oo isku af ahayn oo isku luqad ahayn وإسكو ودنا عن دقنين محاكل ميي محبة نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. عد ثلاثة إسكو درتي ومسلمين عالم كثيري أنه بشر وكلا أنه إسكو نمالنا والنبي صلى الله عليه وسلم على شدي سيلاهي أنه قم هذه علم مجره عد والروحة سور ريحية شدالك قالقة قلبي سكجرة محبة نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. انت يا مدينة يا تدك مسلمين تعملوا الباقي جوغان نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. انت عمرنا دنيدنا أن كنا النهي هدي أنه هذا الهينه والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه شمائل كيسي أخلاق ديسي غزوات كيسي أنو كشكين عمرنا ودن لا نستطيع أن نؤدي قدر من حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه.
waxaanu aaminsannahay inaanaan awoodi karin hal dhibac oo xuquuqda nabigu nagu leeyahay inaan gudannay ma aaminayno sababtoo ah nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xaqa uu nagu leeyahay kelimaad inaanu ku cabirno waa ka wen yahay xaqaas kelimaad iyo cibaaro inaanu ku muujinno oo luqad kasta aanu ku muujinno xuquuqda uu nagu leeyahay nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka wen yahay xuquuqdaasi intaas sababtoo ah nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sida uu nooga danqanayay sharafteenna adduunyo iyo middeenna aakhiro uu ugu dadaalayay wax la soo koobi karo ma aha waxaa jiray xadiis ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayo min xadiisi caaisha oo caaisha ay tidhi rasuulka ilaahay uu ii ducee sala allahu wasalam wabaaraka calayh markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi allahuma akfir licaaisha maa qadamat min denbiha wamaa akharat wamaa asarat wamaa aclanat ilaahu caaisho dembigeedii oo dhan u dhaaf rasuulka marka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ayasuruka yaa caaisha hada adducaa caaishay ducadani maku cajab gelisay maku farax gelisay markaasay tihi haa rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi wallaahi inahaa ladacwatii liummatii fii kulli salaatin wallaahi sidaasaan ummaddaydoo dhan aan ugu duceeyaa salaad walba oon tukado walxadiis rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixihi xadiiska ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku wariyey wuxuuna nabigu tilmaamay sala allahu calayh wasalama wakhti walba ee awqaadda shanta ah ee salaadaha la tukado ka mid ah in qalbigiisa aanu ku taagnayn uu naga murgayey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo mar walbaba uu inoo ducaynayay sharafteenna adduunyahii middeenna aakhirana uu ku dadaalayay bal nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sida imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey duco kayduhu noo sii dhigay oo aakhiro kayd noo aho qofkii xariggu la gaabto xarigga loogu dheeraynayo uu duco kayda noo sii dhigay nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii muslim saxiixiisa uu ku warinayay nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi likulli nabiyin dacwatun mustajaaba nebi kastaahi waxaa la siiyey duca muhima oo mustajaabo ah wa ini ikhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama anigu ducadaydii waxaan kayd uga dhigay ummaddayda inaan ugu shafeeco maalinta qiyaamaha ah maalinta qiyaamaha ah ee kurbada iyo walwalka iyo walbahaarku uu jiro ayaan kayd uga dhigay ummaddayda inaan ugu shafeeco uu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka ducada ugu muhiimsan wuxuu noo kayd nooga dhigay maalinta ugu kurbada badan taariikhda iyo intii ku soo marta maalinta ugu kurbada badan maalintaasuu meel noo dhigay duco uu noogu shafeecayo nabigeena maxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaati calayh ilaahayna arrinkaa uu ku ammaanay nabiga raxmaddiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa ka ilaahay yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idiin yimid rasuul ay ku adag tahay waxa idin dhibaya mu'miniintana aada ugu dhimriya ugu naxariista ayaa idiin yimid yidhi alle subxaanahu wa tacaala annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam mu'miniinta wuxuu uga xaqnimo badan yahay naftooda sidaas awgeed maadaama nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xuquuqdiisa aan la gudan karin mawaaliidda iyo ixtifaalaadka muslimiintu meel walba oo ay caalamka ka joogaan ay dhigayaan waa qayb ka mid ah nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mashaacirtooda iyo dareenkooda maxabada iyo xubbiga ay ku muujinayaan dadka muslimiinta ah a'immada sunnada nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi soo xambaaray ee axaadiista noo diiwaan geliyey
iyo fuqahadii waxay qaalibkoodu intooda badan ay tashriiciyeen ixtifaalka nabigeenu inuu mashruuc yahay sala allahu calayhi wasalam. waxaa ugu magac weyn dadkaas xufaadda islaamka ah alxaafid ibnu xajar alcasqalaani sidaa uu soo guurinayo jalaaluddiin asuyuudi kitaabkiisa alxaawi lilfataawa. xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo khaatimatu lxufaad ah oo annaasu ciyaalun fi lxadiisi calaa kutubihi dadka dhani ay ciyaal u yihiin iyo masaakiin cilmiga xadiiska kutubtiisii ciyaal loo yahay ayaa wuxuu yidhi waqad dahara lii takhriijuhu calaa aslin haabit wa huwa ma fi saxiixayn min ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qadima almadiina fawajada alyahuuda yasuumuuna yowma caashuraa fasa'alahum faqaaluu naxnu nasuumuhu faqaaluu hada yowm أغرق الله فيه فرعون ونجا موسى. wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani asalkan mawlidka waxaa daliil u ah xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ee nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi magaalada madiine markuu soo galay yahuudi ayuu la kulmay iyagoo sooman maalinta caashuuraa. maalinta caashuuraa oo bisha muxaram ay 10 tahay ayagoo soomanuu yahuudii la kulmay nebigu sala allahu calayh wasalam su-aaluu weydiiyo maxaad maanta kala jeedaan soomka aada sooman tihiin. waxay yidhaaheen maanta waa maalin weyn oo maalintii fircoon ilaahay halaagay nebiyullaahi muusena ilaahay badbaadiyey. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum fasaama wa amara asxaabahu bisiyaam. nabigu waa soomay saxaabadiisiina sala allahu calayh wasalam wuxuu amray inay soomaan. marka maalmaha muslimiinta dhexdooda ku weyn wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani maalmaha in ilaahay looga shukriyo xadiiskanaana tusinayo mawlidkuna maalmahaasuu ka mid yahay muslimiinta dhexdooda aada ugu weyn mawlidka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh. wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani shukrigu wuxuu ku xasili karaa bianwaac min aطaacaat. soonka ilaahay wuu ugu xasili karaa inaad ilaahay dartii u soomto waa shukri. sadaqadan la bixinayo oo mawlidka lagu bixinayo waa shukri ilaahay looga mahad celinayo nicmada qaaliga ah oo ilaahay nagu manaystay oo nabigeena maxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh. walidaalika mar haddii a'immadii xadiiska mas'aladan sidan ay u taqriirinayaan waa inay dadku iska daayaan awhaamta kale iyo shukuugta kale ee lagu furayo. maxaa yeelay dadka mawlidka nabiga sala allahu calayh wasalam sida adilada iyo tacsiilka ugu samaynaya waa dad caalamka oo dhan waxaa culimo jooga miisaan haddii la saaro midkood aan gaari karin haddii miisaan la saaro dadka mawlidka tashriiciya dad noocaas. walidaalika nabigeena maxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh waxaa qof walba ee muslim ah waajib ku ah inuu naftiisa ka jeclaado nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. maadaama naftaada uu kaaga xaq badan yahay nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh saxaabaduna waxay ku maqaan gaareen oo ilaa hadda cid gaari karta cibaadadoodu aysan jirin bacda aliimaan waxay ku maqaan gaareen maxabada nabiga ay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam. iimaanka iyo islaamnimada ka bacdi waxa ay ku maqaan gaareen oo cid gaari kartaa aysan jirin ilaa yowmina haada wa maxabatu rasuuli illaahi sala allahu wasalam alayhi wasalam. miraha laga guranayo maxabada nabiga sala allahu calayhi wasalama waxaa kow ka ah an takuuna muraafiqan lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fi ljanna. nabiga sala allahu calayhi wasalam inaad jannada rafiiq kula noqonaysid maxaa ka qaalisan nicmo aad raadin lahayd inaad nabiga sala allahu calayhi wasalama
رفيق كل نقطة جنة حكى قال سنة رادين لها حديث الترمذي ورنا في سننه كورنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكيره من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قفك السنة إذا نولي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وإجعلادي قفك إجعلادنا أنيق أيو معي كل قضاء الجنة رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه معية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة ونعمة قارئة وحالنا كهلي كرتا نبي إلى جعلاته خيات في سنة فاعدي صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك من شاعرة وضدك النبي قادوا جعل صلى الله وسلم وبارك عليه كبد وحو يري لو شق في قلبي كان في وصده حبك والتوحيد في سطري لو شق في قلبي دي قلبي قال دلاعي كان في وصده دحبرتن كيسه waxa loogu tagaya dhikruk adiga magacaaga ee sheegidda nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam qalbiga hadii la dilaaciyo magacaaga iyo xuskaaga loogu tagaya wa tawxiid fi sadri tawxiidkuna sadarka loogu tagaya oo qalbigayga iga qoran la ilaha illa allah sadri iga qoran tuuri qalbigayga hadii la dilaaciyo محمد رسول الله صدرك كلا لقيه يقول قلبي هدي الدلاعي لو شق في قلبي كان في وصده ذكرك والتوحيد في سطري مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فكيف تغيب لذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على شيخ وحيري مثالك في عيني تصالحاغي يا شمائلكاغي يا سداد تيلي ايش الى ان كهيا مليسا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وذكرك في فمي حسكاغا يا صليغاغنا افكيغا ايو كقوين يحي ومثواك في قلبي قلبي واد ايغا دخجرتا فكيف تغيب سيغا مقنتها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ما ايغا مغرب يعني إشي يعربك يا قلبي جيبا وان كاجع على هيور نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مركز وحيري مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فكيف تغيب لذلك مركب ولا ريال نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم waxay qaateen xadiiskii nabiga uu yiri sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi sida bukhari uu saxiixiisa ku wariyay la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in qof adinka idin kamida ilaahay mar rumaynayo oo iimaan toosan laga heli maayo ilaa aniga iga jeclaado naftiisa ahalkiisa أولاديسا يا والدكيس قف مخلوق وسداس يليري نبينا باكجرا صلى الله وسلم وبارك عليه قف مخلوق ولا يري حتى النفط هذه وين تكجعلاته نبينا كجرا صلى الله وسلم وبارك عليه محبة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عبادة حلاوة يا طعم كما هليسد من كو ددميسو قرآنك وحو ددن كو ييلان صلاة أي ددن كو ييلان أذكارته يا تسبيحه أي ددن كو ييلان markii qalbigaaga maxabada nabiga ku jirto sallallahu alayhi wasallam islaamka dana ku macaananaya cibaadada dana khushuuc iyo dhadhan iyo macaan ku yeelanaysa hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam maxabadiisu ay kugu weyn tahay hadii kale waa cibaado yaabis oo qallalan raashin yaabis ma la cuni karo oo saliid iyo sonkor iyo cusbo iyo wax lagu daray aysan jirin cibaadada waa yaabis محبة النبي هذا كم غنتها صلى الله عليه وسلم وبارك سيدا أول البخاري وحو صحيح سكوري النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري ثلاث من كن فيه
وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه saddex arrimood qofkii laga helaa iimaanka macaantiisa iyo dhadhankiisu helaa cibaadada iyo iimaanka u dhadhamaysa wi rasuulkana sallallahu alayhi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ilaahay rasuulkiisu waa inuu ka jeclaado wixii ka soo haray wuxuu ku helayaa qodobkaas dhadhan cibaadada iyo salaada iyo islaamka iyo diinta dhan inay macaan iyo malab ay ku noqoto haddaad nabi maxamed jeclaato sala allahu wasalam wabaaraka calayh sidaas awgeed qofba qofka uu ka jecel yahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa ka diin badan yahay waa ka diin jacayl badan yahay waa ka macaansi og yahay diinta qofkii maxabada nabigu ay ka maqan tahayna sala allahu calayhi wasalam dee waxa weeye diinta dhan waxay u noqon dhagxaan iyo wax qallafsan ayay diintii u noqon sidaas awgeed saxaabada nabigeena sala allahu calayhi wasalam fidaa'iyiin ay ahaayeen ruuxooday ku furanayeen nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dagaalkii uxud markuu dhacayay dalxat ibnu cubaydillaahi alansaari muxuu sameeyey dalxat ibnu cubaydillaah fallaaraha ku soo dhacaya nabiga sala allahu calayhi wasalam isagaa jirkiisa u dhigayay xataa shallat yaduh ilaa gacantiisii ay ka qallashay dalxat ibnu cubaydillaah uu dhahayay sida bukhaari saxiixiisa ku warinayo naxrii duuna naxrika yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow dhuuntaydaasa ka sokaysa taada ilaa dhuuntaydu ay dhimato taada hubka uma gudbayo ee fallaaraha gaalada ay soo ridaya dhuuntaydaasa ku difaacaya hub walba ee dhinacaaga loo sii wado dhuuntayda ha ku dhacdu dhahay taasaa maxabo la yidhaah jacayl taasaa la yidhaah naftiisii waxba lama aha fii maqaami wa fii xadrati lmustafa sala allahu calayh wasalam naftiisii waxba lama aha inay dhimato inay naftiisii dhibaatowdo waxba lama ahan maadaama nabiga uu difaacayo sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa tabaraani uu mucjamkiisa awsadka iyo sagiirka labadiisa kitaabba uu ku wariyey nin saxaabada nabigeena ka mida sala allahu calayhi wasalam ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam majliskiisa markuu fadhiyo meelna ma milicsanayo yamiin walaa shimaal bidix iyo midig midna ma fiirinayo nabiga unbuu sidaa u fiirsan sala allahu calayh wasalam saxaabigii nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi maxaad kala jeedaa arrinkan wuxuu yidhi yaa rasuula allahi maa asbiru canka kaama sabri karo wa innii akhshaa an laa araaka fi laakhira waxaan kaloon ka baqahayaa aakhira inaanan ku arkin dee maqaamkaaga ilaahay jannada uu ku geynayo anigu ma gaari karo meesha jannada aad ka gaarayso ilaahay uu ku gaarsiinayo marka xataa haddii ilaahay janno i geeyo waxaan ka baqaya inaanan kugu dhex arkin jannada maadaama maqaamkaaga cid gaari karta aysan jirin fanazla qowluhu tacaala waman yudic illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa aayaddaas sababu nusuulkeedu waxay ahayd maxabatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam ninkaa saxaabiga ah oo bidix iyo midig midna aan milicsanaynin oo yidhi aakhiro waxaan ka baqi inaan jannada kugu arki waayo adduunyadan kaaga dhergahayaan ku fiirsanaya nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi waman yudic illaaha waarasuul qofkii ilaahay rasuulkiisa adeeca rasuulka raadkiisa raaca fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin kuwaasi waxay micigooda noqonayaan kuwii ilaahay u nicmeeyo ambiyadii safkoodaa lagu soo shirinayaa maalinta qiyaamaha waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa wax rafiiq lala noqdana kuwaasaa ugu wanaagsan lidaalika saxaabada nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh jaanis haddii ay helaan oo nabigaba ay ka helaan jaanis sala allahu wasalam wabaaraka calayh
فرصة ما يسن بردنين يكفى إذا سنة وحيما مسلم في صحيحه وكوريي من حديث أنس بن مالك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع الشعرة إلا في يد رجل. وحير أنس بن مالك حجك النبي قال لجوغي صلى الله عليه وسلم رسولك مركو سو حجينayay waxaan arkay nabiga loo xiirayo tintiisi صلى الله وسلم وبارك عليه وأطاف به أصحابه صحابتيسuna ay ku hareeraysan yihiin فما يريدون ما doonayaan أن تقع الشعرة هل tin inay dhulka ku dhaco إلا في يد رجل nina gacanta u dhiganayo واتنتي النبي iska xiirayay صلى الله عليه وسلم ma doonayaan in tinta nabigu ay dhulka gaarto ilaa nin saxaabada nabiga kamida صلى الله عليه وسلم waxa saxaabadu ay u hareereeyeen oo nabiga isugu gaadaamayaan ba waxa way waa qof walibaahay tin inuu helo oo jasadka nabiga صلى الله عليه وسلم وبارك عليه kamida taasi waxay ku tusinayaan mada تعلق ومحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصطفى المجتبى sidaas oo kale Bukhari wuxuu saxiixiisa ku warina ninkii Urwa la dhihi jiray wuxuu arkay qaabka saxaabadu ay nabiga ula dhaqmayaan sallallahu sallam wa baraka alayh markaasuu ka sheekeeyo wuxuu yiri laqad wafatu ala kisra wa qaysar wa najashi falam ara malikan يحبه أصحابه كحب أصحاب محمد والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهه وجسده وحيره وحانقوتك وفدي بقرهذا أدونك كوه وين سدا قيصر إيا كسرى إيا النجاشي ولما أركين قف الله جعل الصحابة دي سأيوش علايين tusaalu soo qaato wuxuu yiri haduu candhuuf tufo qof saxaabada kamida ayaa gacanta u dhiganaya oo wajigiisa marsanay ila hada mustawa wa ila hada alhadd ay nabiga u weyneynayeen u qiimeynayeen u jeclaayeen saxaabatu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه saxaabadiisu ruuxdooda iyo dhiigooda iyo wax walba agtooda qaali ka ah nabiga kaga horeeyay oo kaga qaalisanaa sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh dalaa'il an-nubuwah waxa imaam al-bayhaqi uu ku wariyay markii nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh uu ka haajirayay magaalada Makka ee godka uu galayay nabiga sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abu Bakar Bukhari uu wariyay qisada nafteeda saxiixiisu ku wariyay sayyidina Abu Bakar wuxuu yiri as-suhbata ya rasuulallah rasuulka ilaahi waxaan ku weydiisanaa inaan rafiiq ugu la noqdo safarka safarkana waxa weeye waa safar cabsi leh oo nabiga la raadinayo sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi safarkaas cabsida leh ee walwal kale uma muuqdo waxa Abu Bakar Siddiq u muuqda nabiga soo rafiiq uma tihid oo lama socotid adduunyo aakhiro wad haysataa marba hadii nabiga aad la soconaysid sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi as-suhbata ya rasuulallah as-suhbata ya rasuulallah ina saaxiibku ula noqdo safarkan waana safar khatiir ah oo cabsi leh oo goda la gelayo gaaladii ayaa eryanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh markaasuu nabigu ka yeeray rafiiqad ila noqon waa iska ooyay sayyidina Abu Bakar Siddiq umra Aisha waxay tiri wali uma aanan malaynaynin qof farxad la ooyay inuu jiro ilaa maalintaas aan ka arkay aabaheeyo farxad la ooyay farxada loo ooyaa ma aanan islahaynaytin ilaa aabahay aan ka arkay markii nabigu yiri safarkan rafiiqaadi ula noqon oo inuu iskala dhacay
حلوية يحوي فرحتي وكبرتي أوجد نبي محمد الله سبحانه والرفيق أدلى النقم صلى الله وسلم وبارك عليه قلت كي مركي لقلي دلائل النبوة وحبيها وكوريي إنه يري سيدنا أبو بكر لا تدخل يا رسول الله حتى أستبرئ لك إلى أن قلتك كهب صدو هجرين رسولك إلهي بهلا كجري كرا أبيسا كجري كرتا مصاصا كجرية أنا أسكب بيمين يقولك أوفيرنا لا قلت حلي قال لك قالي ولي لك قالي معها أنا أسكب فيرنا إياه وقلي يعني وحوي وحي النفط إذا قال إيها قاران لكن أدوه يبدبات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وتقرأنا إنسان قصدي قبل أنسارية داهية دقالك أحد لقد لي آبهد وولالkeed lagu dilay oo ninkeedii lagu dilay oo mar walba ay dhahaysay maada facala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam arrinkaas oo dhan iga daaya aabahay hal la dilo walaal hal la dilo oo ninkayga hal la dilay iga warrama nabigu ma badbaaday sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi markii ay aragtay oo indhaheeda ay ku qabowsatay nabigii oo ilaahay badbaadiyay maxay tiri hadalkeedii mashhuurka ahaa kullu musiibatin bacdaka jalal ya rasuul allah rasuul kastoo musiibo walbaahi waa fududahay haddaad adigu ii badbaaday haddii aad ii badbaaday musiibo kastaahi waa igu fududahay ayay tiri gabadhii ansaariyadda ahay walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dadka la noolaa la jihaadayay majaalistiisa fariisanayay arkayay ayaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxaa afcaasha iyaga ku xambaaraya waa waxay nabiga ku arkeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh low lam takun fiihi aayaatun mubayina lakaana wajhuhu yumbiika can ilkhabari waa kii yidhi cabdullaahi bnu rawaaxa wuxuu yidhi low lam takun fiihi aayaatun mubayina لكان وجهه ينبيك عن الخبر هذه wax aayado oo kale mucjizooyin kale uu nabigu sallallahu alayhi wasallam Allah iman lahayn wajigiisa aad fiirisaa wax walba ku sheegay wajiga xabiibka sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi oo aad fiiriso ay arrintuba ku dhamaanayso wax walba ku sheegay yani waxa ka muuqanayay anwaarta nabiga ka muuqanaysa صلى الله عليه وسلم هيبدا كم وقنيسة وحد دريميسي إنه يهي أحد كي إلهي دورتي وخلقيني مخلوقات كانوا دل إلهي وكرح دورتي ودريميسي وجهي سهدات في رسوير هذه معجزوين كلا يعلم فيرن لكان وجهه ينبيك عن الخبر وجهي خبرك يوحى جراء ودن كاغا ورميي نبي الله محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه تعلق هي محبة هي توقيرك هي جلالك أي قبيل النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر شبط نبي كل بسنجر شبط وقادنجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال مركي وقيريودي كبعدي شبadaas عائشة hayn jirtay عائشة markii geeriyootay gacantii waxay soo gashay Asmaa bint Abi Bakr ayaa hadana jubadii haynaysay sida Imaam Muslim oo saxiixiisa ku warinay Asmaa bint Abi Bakr waxay leedahay kunna naqsiluha lil marda yustashfa biha jubadii nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu geeriyooday ka bacdi dadka xanuunsanayaan u dhaqi jirnay ilaahina waa ku caafin jiray شبدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في صحيحه حديث مسلم يا صحيحي سكوري شبد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ذاتك حنون سنية أيام يري جرني ربنا وكو عافين جري يعني آثارت يا ريادتك وكتغي لمد ما هين ريادتك ذاتك كلي waxa uu ka tagay waxa jismigiisa nabiga taabanaya sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi ilaahay baraka khaas u dhexgelinay wixii jirka nabiga taabtaba sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi
بركة خاصة أيو دح جرينجر قالوا فيرسو إلى يومنا هذا يا وحى لحفظة آثارت إرادتك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نفتي إذا مرة تركيا تجي أن كسر كمال اللي راه توب كبي واللجوء إلى علي واللجوء وردي إرادتك لجسوا جاري نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه ويكمتها قطعة من شعرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قيد تنتي النبي كمد صلى الله عليه وسلم والدولة العثمانية مركي عالم كيكتل ليس عالم الإسلامي أوردن آثارتي أي حفظي أي إلى يومنا هذا الله وأنه بينه عن كسو أركي وتنتي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ونلقوه قولينا فرت سارتي لا لا شيء كل حجرتها لا لا ستكدح دعوانا يقول وأنا فايل دير وحوي عريري وحلقوه قبنا يا الله ودقيقة وحلا منه قولي سواردينا إلى لنا جانسك وكان ما ذي سعال يقول وفك كلا هدنا كفى يست مركز هذا استراحي حل كان وحل كليله ودتك صواب بحياة وفيرا والمجرى آثار النبي صلى الله عليه وسلم قف إلهي سداس محبدي سوقري خلقك أودن وقلوبتا بني آدم كيدتك مسلمين إلهي سدا وقبوحي محبدي سيكالقعيل كيسا هذا أمرين قف كاسي سدا إلهي ودورتي نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه ولذلك حلو باهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحيلا لها الشواهد يا مرقاتيه شواهد داسي وين نقم قدام ولا أكبر شاهد لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله وهديه النبي صلى الله عليه وسلم سندي أنوغتي دينتي أنوغتي إن نبرنه مركان نبرننا أن نعمل فلنه هديجي يجدك النبي أن نراعنه صلى الله عليه وسلم وأكبر شواهد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتيالك مرقاتي وين وإلى النبي جدك يصير راعده وحي كتسنا إلى النبي آدو جعشها إلا قفك اللي جعل يهي إن المحب لمن يحب مطيع قفك وجعل يهي وأدعى راتك يسور راعه هدي برك النبي قال وجعلنا صلى الله عليه وسلم أخلاق دي سي سنة النبي وحنا وقته صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك إلهي جل جلاله عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسولك عليه صلى الله عليه وسلم وحيدين كوسقناتي كديشو يا كدينا يا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قفك إلهي رجك له قفك إلهي رحمة دي سرجك له قفك أسأل النبي محمد كديدو إلهي ليه جل جلاله مفهومك آيات محاد كفهمين قفا النبي محمد راد كيسان راعين وقفا إلهي رجك لهي ما أنت آخرنا أن رجك لهي قفك أسوي قفك هديك النبي خلافه صلى الله وسلم وبارك عليه وحكم إذا شواهد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرقاتيالك أبوه وين وحكم إذا إنه أفكار وكقويه مر والبابا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عربك وكقويه كبد السه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أديك كل باني أديك هرمرك جارية حديثك أبي بن كعب وذكته مركي أبي بن كعب صحابي اللي له يري إذا أجعل لك صلاتي كلها وقتيغو دنبو waxaan ka dhigay salligaaga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi wuxuu ugu jawaabay idan tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk hadaad salligayga sida u badiso saxaabigan Ubay ibn Ka'b adigana murug iyo kurbo dhan ilaaha ka kaafinaya dambi dhaafna waad heli waa labada arimood aan ugu jecelnahay mashaakilka dunida waxana kurbaynaya iyo cudurro iyo kurbooyin iyo waxa mashaakil nala soo darsayo dhan صلى النبي صلى الله عليه وسلم حل ويهي إلهينا دنبغا وكل عافي
nabigana rafiiqiisa kula noqon jannatul firdaws haddii aad badisid salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa ka mid a nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii cirdigiisa iyo diintiisa iyo sharafkiisa wax laga sheego inaad gubanayso oo muuqaalkaagu isbedelayo markhaatiyaalka waxay ka mid tahay maxabbada nabiga inaad jeceshahay waxyaalaha tusinaya sida hadda caalamul islaami oo dhan ay u wada istaageen oo ay uga wada dhiidhiyeen oo ay uga caroodeen oo ay ku cambaareeyeen gaalkii najiska ahaa oo nijaaska ahaa macron markuu nabigeenna wax ka sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waad aragteen dunidii oo dhan isla gilgilatay dunidii oo dhan ayaa isla gilgilatay leanna waxa weeye nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo wax laga sheego waa muslimiintii oo dhan oo wax laga sheegay caalam waa diinteennii oo dhan oo islaamka oo wax laga sheegay weeye nabiga wax laga sheego sala allahu wasalam wabaaraka caleyh muslimiinta gilgilashada ay ka gilgisheen waxay ku khasabtay gaalkii shaydaanka ahaa inuu taraajucaad sameeyo oo dib uu isugu laabto uu yidhaha sidaa ulama jeedin hadalka si kale loo fahmay waxaa keenaya waxaa weeye wuxuu dhadhamiyey ciriiri leanno isaga waxaa weeye mar walbaba waa caabidu dirham shilinkaasuu caabudaa markii adduunkii mar walbaba badeecadiisii ay takoor ka noqotay oo la takooray badeecadiisii faransa oo wax walba oo isagu uu soo saaraba laga takooray adduunyadii oo shaqaalihii dowlado badan shaqaalaha jinsiyaddii haddii la leeyahay waa faransiis laga ciirinayo shaqadii wuxuu marka ka baqay thawra shacbiya inay ku kacdo oo shacabkiisii ay ku kacaanba taasuu ka baqay markuu u baqay nafsadiisii ayuu taraajucaad uu sameeyey lidaalika marka muslimiintu way ku mahadsan yihiin meel walba ay joogaan inay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sida ay uga dhiidhiyaan maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi wasalam aflagaadada la aflagaadeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubadeeda wuu soo dedejiyaa qabla alaakhira aakhira ilaahay lama sugo taariikhdana dib u akhriya intii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wax ka sheegaysay xaggee ku dambeeyeen mucallinkii faransiiska ah oo hadda ugu dambeeyey xagguu ku dambeeyey maalmo yar ka bacdi ilaaha ku salliday ruux muslim ahlu khayr ah ayaa ilaahay ku salliday oo gowracay inta kalena kuwa noolna cuquubay ku nool yihiin cadaab kuwa kalena tage kuwa kalena cadaab iyo dulli iyo walwal ayay ku nool yihiin lidaalika marka maxabbada nabiga sala allahu calayhi wasalam astaamaheeday ka mid tahay nabigeenna inaan ka qiireenno sala allahu wasalam wabaaraka calayh kelimadeediina intaas ayaan ku soo gaabin hada wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفصح الله لسانه ونور الله قلبه شيخنا العلامة الدكتور أبو بكر حسن مالن كلمتيسي ذهبي أهد إذن عيضا تابني يسوي نوسو جيديو أننا إلهي سبحانه وتعالى هو يكون غماء يكون فلا الله نقديو هاتن وحان أديب يا عدباهيها في كلمتيسا munaasabka ah ee xafladatan qiimaha badan ku aadan uu inoo soo jeediyo sheekheena jaliilka ah ee caalimka ah waa sheekh cali cuthmaan sheekheena jaliilka ah ayaan u dhiibayaa kelimadiisa munaasabka ah falyatafadal mashkuuran ma'juuran biidni illaahi tabaaraka wa tacaala
الرحمن